agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska oo ay weheliyeen saraakiil ka tirsan wasaaradda waxbarashada oo baryahanba socdaal ku marayay qaar ka mid ah gobolada bari ee Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta gobolka Saaxil ee Berbera. Ujeedada socdaalka agaasimaha guud ayaa la xiriiray dardargelinta iyo kor u qaadista adeegyada waxbarasho ee dalka iyo sidoo kale qaybinta buugaagta cusub ee fasalada afraad ee dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agaasimaha oo ay weheliyeen mas'uuliyiintaasi ayaa saaka hiirti waa bari kormeer ku soo maray qaar ka mid ah dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee magaalada Berbera. iyadoo halkaasina ay warbixino kala duwan ay ka siiyeen maamulka dugsiyadaasi iyo sidoo kale guddoonka waxbarashada iyo maamulka gobolka Saaxil oo socdaalkaasi ku wehelinayay. ugu horreyn isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Saaxil Ibraahim Digaale Maxamed ayaa ka waramay xaaladda waxbarasho ee gobolka Saaxil ee waqtigan. waxa kale oo socdaalkan agaasimaha guud u daaran yahay marka kormeerka laga yimaado waxa uu noo wadaa bushaaro wanaagsan waxa uu noo sidaa qolada foorfoorka buugtii fasalada afraad buugtaasi waa maanta lacagtii la idinka kafaalo qaaday waxaan u baahanay inaan ilaashino dayactirka ka ilaalino buugta waxa leh iskuulka annagoo kaashanayna wasaaradda waxbarashada mar kasta waxa aanu u fidinaa hadba waxay u baahan yihiin gacana agaasime iskuulkan wuxuu ka mid yahay 6 iskuulo magaalada ku dhex yaala oo ay ka socoto dayactir fudud iyo dayactir culus ay labadaba isku dhex jiraan. iskuulkan joogno maanta qayb ka mid ah jiingada oo daldaloshantay gebi ahaanba waa laga qaaday 5 iskuulo kale oo magaalada ka socdaan ku yaalana waxa ka socda iyagana oo hadda gacanta lagu hayaa waa dayactirada fudud hadda kanad gacanta lagu haysan arkaynay. gudoomiyaha gobolka Saaxil injineer Axmed Cismaan Xasan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay agaasimaha guud iyo buugaagtan cusub oo u qaybinayo ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee magaalada Berbera. buugaagtaasi waa qori isku dhiib waxa la rabaa ardayda in naga dambaysa inay ka faa'iideysato oo buugga maanta la bixiyay oo ugu yaraan 10 arday oo ka dambeeya isticmaali karo form 4 kana waxaan leenahay uu dhow yahay timekii imtixaanka la galay dadaalkiina laban san hore idin ku sheegay waxaynu doonaynaa inaynu noqono ardayda ugu fiican maxaan ku dhahdaa jamhuuriyadda ka mid noqono. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Axmed Abukar Maxamed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay ujeedada socdaalkoodan ay ku marayeen gobolada Saaxil Togdheer iyo sidoo kale gobolka Daadmareed kaasoo sheegay inay ku dirdirgelinayeen guud ahaanba waxbarashada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo fariin u soo jeediyay ardayda wax ka barata dugsiyada dalka. buugaagtan madaxweynuhu nagu daaqay inay ilaashataan oo ka ilaalisaan marka cadeeda oo ka ilaalisaan qoyaanka oo ka ilaalisaan marka ama jaxwaan ama dayac kale yimaado idinku marka form 4 baatiin form 4 kuna runtii waa dadka ugu sareeya iskuulka leaders baatiin marka macnaheedu waxa hogaamiyaatiin qofka hogaamiye waxa looga baahan yahay inuu marka isagu waxba loo sheegin isagu dadka u sheego marka dardaaran fara badan lidii sheegi lahaa inay idinku garataan baa la doonayaa buuggan iyo qiimo uu leeyahay iyo ilaalintiisa. talabaad waxa weeyaan imtixaankii baa aad iyo aad soo dhow imtixaankaas soo dhow marka la diiday macnaheedu cabsi ma laakiin ay diyaar garoodaan baa la doonayaa maskaxaan iyo niyad ahaanba 2 bilood wax ka yar baa adii hadhay marka 2 bilood iyo bar meelaha imtixaan ka hadhay waxa laga yaabaa marka in sanadkii hore laga sii baadkayo oo kalaasyo qaar lagu xidho marka kamarada CC kamarada leedahay ardayga marka idan macalinku bay eegin ay duubanta marka ardayga wax sameynaya ama arday kale wax ka qishay arday kasta waxa la siiyay marka 10 buug oo ardayga form 4 ka buugta qaarna way calaamadayn qaarna way soo socdaan gudoomiyaday ardayda qaar ka go'an. intaas kadibna agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxa uu buugaagtii u qaybiyay ardayda fasalada afraad ee dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Berbera oo maanta kormeerka ku marayay. waxaana iyaguna dhankooda dareen farxad la ku soo dhaweeyay buugaagtan ay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay u qaybisay qaar ka mid ah ardaydii dhiganaysay dugsiyada aan maanta kormeerka ku maraynay ee dugsiga sare ee Bursade Cabdisalaam iyo sidoo kale dugsiga hoose dhexe ee Xasan Cali Hinri. waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo noogu deeqay oo noo gartay haddaan nahay fanfoorada inuu na soo gaarsiiyo buugaag waxyaabo badan naga kaabaya. buugani horta baahi weyn baan u qabnay gaar ahaan inaanu ka qaybno examka nagu soo socda ee heer qaran. ujeedada socdaalkan lagu dardargelinayo waxbarashada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee agaasimaha guud ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socdaan oo ku mari doono qaar ka mid ah gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera.